kulanti wacan wanaagsan daawadeel halkan waa janalka ifka media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada aan soo qadan doono waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo mar kale si kulul cambaareysay weerarkii gantaali xoutiyiinta ku qaadeen Sacuudiga gudiga lagu muransiiyay doorashooyinka Soomaaliya oo ku baaqay shir degdeg ah sidoo kale la soo bandhigay caqabadaha weli ka hortaagan inay qabsanto doorashada Soomaaliya qodobada kale aan soo qadan doono waxa kamid ah wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo ku baaqay in xayiraad lagu soo rogo dalka gudoomiyaha gobolka banaadir oo soo saaray amar degdeg ah oo ku aadan shacabka muxuu yahay maxay tahay amarka xilligan uu soo saaray gudoomiyaha gobolka banaadir qodobada kale aan soo qaadan doono waxa kamid ah wasiirro isku casilay jibinta awaamiirta COVID-19 qodobada kale waxa kamid ah xukuumadda Itoobiya iyo Mareykanka oo isku haya arinta gobolka Tigray maxay tahay sababta mar kale ugu hadla Mareykanka maxay tahay Itoobiya arinta lagu eedeynayo qodobadaas qodobo kale ayaan warkeena daawadaan ku soo qaadan doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqato fadlan ha iloobeyn inaad tiraahdo janalka subscribe asxaabtana aad la wadaagto janalka waxa ka mamnuucay in soo baahin xogaan dhameystirneen oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed dib u dhac u keeni kara ku soo dhawaada daawadaan warkii oo fidsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay weerarkii gantaali xoutiyiinta ku qaadeen Sacuudiga warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si adag lagu cambaaray weerar gantaal oo maleeshiyaadka xoutiyiinta Yemen axadii ay ku qaadeen magaalooyin ka tirsan dalka Sacuudiga kooxda xoutiyiinta ayaa gantaalo balaastiga ku tuuray jihada caasimadda Sacuudi Carabiya ee Riyaad iyo magaalooyin ka tirsan gobolka Jeezaan oo ay kamid tahay magaalada Mismishaad qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri Soomaaliya waxay u aragtaa in weerarkan uu yahay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah iyo bini'aadanimada isla markaana ah dambi argagixiso oo ka dhan ah meelaha laga degan yahay wuxuuna carqalad ku yahay dadaalada qaramada midoobay ku doonayso in laga gaaro xal siyaasadeed oo dhameystiran oo lagu soo afjaro colaadda dalka Yemen ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay boqortooyada Sacuudi Carabiya ay xaq u leedahay inay difaacato dhulkeeda ayna ilaaliso ammaankeeda iyo badqabka muwaadiniinteeda gudiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku baaqay shir degdeg ah waxayna sidoo kale sheegeen caqabadaha weli hortaagan inay qabsoomaan doorashada Soomaaliya gudiga lagu muransan yahay hirgelinta doorashada Soomaaliya ayaa ku baaqay in xal degdeg ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka si loogu gudbo caqabadaha weli hortaagan inay qabsoomaan doorashada Soomaaliya qoraal ka soo baxay gudiga waxaa loogu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada inay fuliyaan heshiiskii 17 September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho gudiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ayaa soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan ay wada gaareen midowga musharaxiinta iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa isfahanka waxyaabihii dhacay qoraalka ka soo baxay gudiga ayaa ka koobnaa sidaan gudiga hirgelinta doorashada heer federaal wuxuu ugu baaqayaa golaha wadatashiga qaran ay degdeg isku yimaadaan si loo xalliyo tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii 17 September 2020 gudigu waxa uu kala soo dhaweynayay heshiiska dhawaan ay wada gaareen midowga musharaxiinta iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa isfahanka waxyaabihii dhacay waxaana gudiga ku boorinaya inay sii wadaan dadaalada la iskugu soo dhaweynayo siyaasadda ee daneeyaasha kale ee doorashooyinka si wadanka ay ugu qabsoonto doorasho loo wada dhan yahay oo xor iyo xalaal ah gudiga isagoo eegaya xaaladda dalka dhinacyada amniga siyaasadda duruufaha kale ee nololeed ay qabaan dadka Soomaaliyeed una baahan in lagu gudbo marxaladahan wuxuu ku baaqayaa in dhinacyada dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka oo ah cid ay ka godo talada doorashooyinka ay fuliyaan heshiiskii doorasho ee 17 September 2020 la gaaray gudiga waxa uu sidoo kale ku baaqayaa dhammaan dhinacyada inay ku dadaalaan qaybna ka qaataan isku soo dhaweynta dadka lagana fogaado hadallada ku dhisan kala xareynta iyo qaybinta bulshada Soomaaliyeed gudigu wuxuu u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dadaaladii xal u helidda heshiiskii Muqdisho 25 bishii Febraayo sidoo kale wuxuu gudigu u mahad celinayaa dadaalada xoogan ee beesha caalamka ugu dabaqayaan dhinacyada si looga gaaro isfahan buuxa hadalka gudiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli weli ay taagan tahay caqabado ku aadan inay dhacdo doorashada Soomaaliya wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in xayiraad lagu soo rogo dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya
marwo foosiye abikar nuur ayaa walaac xoogan ka muujisay kiisaska cudurka safmarka ee covid-19 oo dalka kusii kordhaya kaasi oo dad badan u dhinteen kuwa kalena ay haatan ugu jiraan xaalad karantiil ah. wasiir foosiye oo qoraal soo dhigtay barta Twitter-ka ayaa sheegtay in sanadkii hore xakameynta cudurka covid-19 qayb weyn ka qaateen xayiraadda lagu soo rogo guud ahaan wadanka, waxaana ay dalbatay in dalka marka la xayiraad lagu soo rogo. qoraal ka soo baxay wasiiradda ayaa u qornay sidaan xakameynta faafitaanka cudurka covid-19 ee sanadkii tagay waxaa qayb weyn ka qaatay xayiraadda lagu soo rogo guud ahaan wadanka. markale waxaan soo jeedinay in xayiraad lagu soo rogo si looga hortago faafidda heerkeedu sii kordhay ay hadda aan arkayno ayay tiri. sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya marwo foosiye abikar nuur ayaa sheegtay in shaqada socota ay laf dhabar u ah bulshada ganacsiyada Soomaaliyeed iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, waxaana ay aad ugu mahadcelisay shirkadaha gaarka ah kuwaas oo muhiim u ah howlgallada ka hortagga iyo la tacaalidda cudurka covid-19. wasiir foosiye ayaa dhowr jeer ugu baaqday shacabka inay ka feejignaadaan faafitaanka cudurka isla markaana bulshada ay qaataan tallaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo cudurka covid-19. Soomaaliya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa si aad ugu soo kordhay kiisaska cudurka covid-19, waxaana Muqdisho gobolada ugu geeriyooday dad badan iyadoo kiisaska ilaa iyo haatan wasaaradda caafimaadka ay shaacisay in la diiwaan geliyay ay gaarayaan 7257 ruux. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa soo saaray amar ku aadan shacabka ku nool magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka looga hadlay wacyigelinta xakameynta cudurka covid-19 kaas oo ka dhacay degmada Shibis ee magaalada Muqdisho. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir, xogayaha guud, gudoomiyaasha degmooyinka, saraakiisha amniga, agaasimiyaalka tirsan waaxda dowladda hoose ee gobolka Banaadir. kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray bulshada ku nool caasimadda cudurka safmarka ee covid-19, waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish uu amar ku bixiyay in la xirto afsaarka si looga gaashaanto xanuunka cudurkan covid-19. agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Wiish oo aqriyay war-saxaafadeed ka soo baxay duqa Muqdisho ayaa la faray goobaha ganacsiga sida dukaamada, maqaayadaha, carwooyinka, bangiyada, xafiisyada bixiya adeegyada in aysan u ogolaan qofka aan haysan afxirasho inuu ka dukaamaysto goobtooda ganacsi. dhammaan milkiilayaasha goobaha ganacsiga ayaa la faray inay dhaqangeliyaan amarkan ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir si looga digtoonaado faafitaanka cudurka covid-19. laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda dalka Urdun ayaa isku casilay jibinta awaamiirta covid-19. laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda dalka Urdun ayaa ku dhawaaqay inay iska casileen xilalkii ay hayeen kadib markii ay ka qayb galeen xaflad qada ah oo lagu qabtay baar ku yaala caasimadda dalkaasi Urdun ee Ammaan. ra-iisul wasaaraha dalka Urdun Bishaar Qazanawa oo ka aqbalay qoraalka iscasilaadda oo ay soo gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha Samiir iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda Bassam Talibani. ilo ka tirsan dowladda dalkaas ayaa la sheegay in labada wasiir lagu soo oogay inay ku xadgudbeen sharciga degdega ee xakameynta cudurka safmarka ee covid-19. wasiirada iscasilay waxaa lagu eedeeyay in xaflad qado kala qayb galeen dad tiradooda dhameed 9 qof, halka sharciga degdega ee xakameynta covid-19 ogoleen in hal madal ay iskugu yimaadaan wax ka badan 9 qof. wakaaladda wararka Urdun ee la yiraahdo Petra waxa ay sheegtay in xilka wasiirka cusub ee arrimaha gudaha loo magacaabay Tawfiiq Kirshaan oo ah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkaasi. boqortooyada Haashimida Urdun ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof waxaa la diiwaan geliyay in cudurkan covid-19 ku dhacay 3,8,268 qof, halka 4,627 kalena ay u geeriyoodeen xanuunkaas cudurka covid-19. ugu dambeyn Mareykanka iyo Itoobiya ayaa isku haysta arinta gobolka Tigray. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu aad ugu walaacsan yahay tacadiyada iyo xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in dalkiisa uu xukuumadda Itoobiya ugu baaqay in ay soo afjarto colaadda ka taagan gobolkaasi. waxaan si weyn ugu cambaareynaa
dilalka barakicinta xadgudubyada galmada iyo tacadiyada kale ee dhinacyada ka geysanayaan isla markaana ay ka warameen dhowr hay'adood ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka uu soo saaray xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. xukuumadda Abiy Ahmed ayaa sheegtay inay xoogga saarayso wax ka qabashada xaaladda bini'aadanimo ee haatan ka taagan Tigray isla markaana hay'adaha caalamiga ah kala shaqeyso sidii loo gargaari lahaa gobolkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku talisay in si degdeg ah gobolkaasi looga saaro ciidamo ay sheegtay inay ka yimaadeen Eritrea iyo deegaanada amxaarada ee deriska la ah gobolka Tigray. daawad haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato fadlan ha ilooyin channelka inaad tiraahdo subscribe asxaabtaada aad la wadaagto wixii tala ay tusaale waxaad inagu reebtaa qaybta hoose ee commentiga.